ciidamada booliska ee degmada Howlwadaag gaar ahaan ciidan ka howlgalaya ee gudaha suuqa Bakaaraha ayaa falkaasi ka hortagay oo rabay inay markaasi gacanta ku dhigaan kooxahaasi argagixisada ah balse kooxihii oo markaasi ay sameeyay in ay iska caabiyaan ciidamadii ayaa halkan waxaa ka dhashay iska horimaadkaasna waxaa ciidamada booliska ay ku dileen laba ka mid ah kooxahaasi waxaana sidoo kale dhinaca booliska ka dhaawacmay hal askari oo hadda goobaha caafimaadka lagu daweynayo sidoo kale intuu iska horimaadkaas socday waxaa ku geeriyooday qof shacab ahaa oo ka mid ahaa dadkii suuqa markaasi u soo ganacsi tagay ama rabayba inuu waxyaabo ka gato sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay asigana qof kaloo shacab ah waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo iyagu wada shaqeyn buuxda oo dhow la sameeyay laamaha ammaanka qaybahooda kala gidisan kooxahan ay ahaayeen kuwo iyagu falal amni darra hore ugu sameeyay gudaha suuqa Bakaaraha isla markaana ay ciidamada ku raad joogeen maantana ay soo afjareen falalkii hore ugu sameyn jireen gudahan suuqa Bakaaraha ciidamada ammaanka qaybahooda kala gidisan maalmihii u dambeeyaba waxay sameynayeen howlgallo kaga hortagayaan kooxaha iyagu damacsan inay falalka amni darrada ah sameeyaan